waxaan soo jeedin lahaa fariinteedu kulay way gaari hadduu maqan yahay hadduu joogo way gaari inuu yiraahdo oday carbeed baa wuxuu yiri laba nin baa maqaayad isku dhex qabsaday markaas qab miisaskeeda ya akhi ya la takas ya naas la takasaru minna saaman war miisaska naga jajabinna buu yiri isaga inta waxaan ka codsan lahaa inuu yiraahdo war marka madaxda caasimadii odageedii baan ahay tartama laakiin caasimada ma ogoli qof qori iyo qoldaan soo qaatay ma ogoli inuu yiraahdo maayirka barbaradna uu joogay mid walbana ha kala daydo ka barbaradna ha yiraahdo ka boorma dhamaantoodba inay sidaa wada yiraahdaan madaxweynaha talana soo jeedin waxaan soo jeedinayaa taladu waxay tahay nabi ilaahi tacaala maxamed oo la doortay oo bidariiq ilhaam wa bidariiq alwahyi labadaba wax loogu sheegayo ayuu ilaahay yiri oo shaawirhum fil amri dadka umuuraha la tashawir madaxweyne waxa ku soo jeedinayaa nin islaam oo la doortay oo muslim ayaa tahay dadka waa shacbigaagii dadka shacbigaaga bulshadu adraafta ay ka kooban tahay dadka oo dhan wada gaari maysid laakiin waxaad la tashataa koow ugu horeysay culimada diinka la tasho oo waxaad tidhaahdaan maxaad talay ku siinaysan arrimaha kolba wixii adoonaysa inay ku tusaan ama iyagu wixii ay hayaan aqoon-yahanka waaweyn la tasho ragga safarada ahaan jiray ee siyaasadaha dawliga ah soo maray ama maamulo adigaba kaaga horeeyay iyaga naftooda la tasho ragga ganacsatada ee waaweyn ee wadankeena rukniga iyo tiirka oo waa la ogyahay rag waaweyn oo hebel iyo hebel anigu maanta oran baa jira oo shirkadaha ganacsadaha oo ninkiiba laga yaabo 10,000 oo qof inuu ama ka shaqaalaysiiyo ama uu masruufo ama uu kaalmeeyo dhakhtarada ka qayb galaan masaajidada ka qayb galaan wadooyinka ka qayb galaan ragga iyaga naftooda la tasho hoggaan dhaqameedna la tasho kolka laba nooc laga reebo laba qof hadda uma jeedo laakiin laba nooc baan u jeedaa laba nooc hala tashanin waar inagu kiciya waar reehebada ay kale ee eriga ku dhawaaqaya ka waxba weydiini ka waxba dhulka igama yaalaan leh anna waxba dhulka igama yaalaan kaana waxba weydiin anu laba shakhsi uma jeedo nin baa waxa la yiri bari habeen baa la dilay markaas raadiye la yiri bal wixii dilay bal la isku yimaadaan la yiri nin uu baa yiri waar yaade waar maxaynu ka shirshiraynaa uu buule waar ninku soo ka idin muuqad maaha waar ninka qabta uu baa la yiri baa uu buule halka uu ka booday isagoon hadda laba hadal qaadin marka ninka qaadanaya oranaya sheekhi garka cadaay anigu ii jeeday oranayaay isaga jirtaa laakiin labada nooc waa laba mufsidiina weeye kala maxay hayday yaa reehebalaay maanta la nagu kiciyay aan dawladda dibinoy iyo kale aan dhulka waxba igama yaalaan ina waana la yiraahdo war ilaahay ka yaab la yiraahdo mad waartay baa la yiraahdo mad waaranta la yiraahdo adduunka halkee maanta la maraya labada waxba weydiin waxaan u dhaaftay arrinkooda xeeraalintii hay'adaha nabadgelyada u dhaaf كل أدو أضيبات هاي أضيق غيركات هاي كل والجوس أوي دونا وحلقون دونا أضيق دارت لو يتأيو صاحبا أدنى وكوب الناس الشرع جاب كوفة صحية إن ترى هذا وأضيق وقل دم إنك سيداية لكن كل كهراء هيبدأ الدولة نمضى هلا عركه وعرفت إلى هذا كم مهان إذا لم يكن ملك ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة نك بقرك هدو هيبدأ يروي أو لقى بسوا وعيو دولة ذا سوي صوتي مركها وإن دلقاتك بدن أنت بدن الرماع عينكاس أن لو دلقادن مثل شعب قديم وقصر نقول يا شعب يوم نبت قليلا إنه إلى شن وذلك إنسان سوريا ودمدي قارب وكمد أها إسكو في اللانشة لون والبا هذا هو تهاي هذا عطل تهاي هذا لون والبا تجارب هاي ما أنت أنا محجبه هوجي وأكو سوقية دي مساجد كقرن في سنة ودمدي وحاس كرد عينه ولا أوجيه واحد أكتهين oo kale oo xusuusan midalaan idin soo qaadaya Xasan bin Ali bin Abi Talib ayaa yiri dagaalkan muxuu ka dhacayaa buu Ciraaq iyo Shaam oo dhan ay isku kaceen soo madaxnimada ma aha anaaba u daayay Muawiya ha qabsaday buu Muawiya uga haray aamul jamaa baa leeyahay Uthman bin Affan kolkay ay ku kaceen fawradii Masar iyo Kuufa iyo Basra ka soo kacay maxay doonayaan buu adiga inuu ku dilaan bay doonayaan baa leeyahay hay dilaan iska soo daayay buu halkii bay ku dileen wax la yaabo kala raacinaya siyaad barasoo madaxweynaha Soomaaliya ugu dambeeyay ma ahayn ee dabaabadii sawaariikhdii gantaaladii haystay kolkii dhalinyartii hawiyo halka kaga soo qayliyeen ha ilaahdeen taw uu buu yiro halka gadi iyo Nigeria afadhigay mid baan idin sheegaya madaxweynaha maanta joogay Xasan bin Ali noqon maayo oran maayo war heerow kaale adigu qabo adan kugu wareejin laga filimay sidii Sayid Usmaan inuu yiraahdo هل يدلي إسكاس واحد دونتا أنا قال لي دوليا مياها ورقورتي جوي تعال الله ما فديه إن إنما تقانادو قرنوا تايبان لي
sidii siyaad barrana lagama filayo inuu yidhaahdo dabagale iyo nuuxtaani ciidamada ii soo diyaariyo halkaa xaraf iyo xarshin afka u dhigo taana loogama fadhiyo mar hadday sidaa tahay walaalayaal waxaan ilaahay doorashadii waad isla garateen baa leeyahay walaalayaal waddankaa nabadiisa ha la adkeeyo aan ka soo horjeedsano wax alla wixii waddankaa burburay nin dhallinyarada maalin dhowta wuxuu igu yidhi sheekh cabdillaahi adu ma nabadda unbaad odhan buuri ha in yar baan ku tusaalayn baadhi adeer aniga iguma ay dhicin baan laakiin waan u soo joogay bal waxaad ka warantaa baan hooyada iyo aabbaha oo cad ah gabadhaadii oo ilaa 8 carruur leh iyadoo umul ah ama fool ah oo isbitaalka in loo qaado rabto oo waa la qaxayaa la yiri bal siday kuula eg tahay baani markaas wallaahi waa mushkilad arrimaha un baan hadaba leenahaanu wax nabad oo haynaa waxa weeye islaanta wadatada ee suuqa fadhida bacadlaha kaariyoona wax ku raacaya nashaadka masaajidada ka taagan ee maanta inamada kolkaad aragtaa aad oran karayso waman yu'azzim sha'aa'ir Allah fa innaha min taqwal qulub aad oran karayso wax alla waxa soo dhanba nabadgelyo darro ay kala daadinaysaa marka waxaan leeyahay hadalkii waan badiyay ducadii sheekhyada ku ducaynaya اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها يا ارحم الراحمين انا wax wanaaji un baan lahaa hadii ay meel ka dhacan sameeyay daada nafteeda lagu dulqaataa oo leeyahay waradigu hore 4 joogo waa la dulqaataa cidi aan meel ka dhacay way dulqaadani in uriido illa al-islaah ma sadactu wa ma tawfiiqi illa billah wa